sidaan ku heleyno wararka ka imaanaya gobolka Bakool dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada Itoobiya ayaa saacadii ugu dambeeyay ka dhacay deegaano hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool. dagaalkan ayaa yimid kadib markii kolonyo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya wadada loo galay kuwaas oo siyaabooyin kala duwan uga yimid dhanka xuduudda kana soo galay deegaanada Caato iyo Baari. waxaana la sheegayaa ciidankan oo ku wajahnaa degmada Waajid ee gobolka Bakool inay la kulmeen weerar dhabagal kuwa oo dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen ciidankaas. weeraradani oo sida wararku qaar ay sheegayaan ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal toos oo dhinacyadaasi dhex maray ilaa iminka lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkaas. yeeshee waxaa la sheegayaa in dagaalka kadib ciidamada Itoobiya dhowr madaafiic ah ay ku garaaceen agaaraha goobo ay tuumayeen in waqtigaasi ay kasoo weerar tageen dagaalyahanada al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda dagaalkan ayaa waxa ay sheegeen in agagaarka deegaanka Buurdhuxule ee gobolka Bakool ay ku weerareen ciidamo Itoobiyaan isla mar ahaantaana halkaas ay ku gaarsiiyeen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. waxayna sheegeen al-shabaab in ciidanka Itoobiya dhaawacyada iyo meedadkooda ay ka daabuleen degmada Waajid kuna qaadeen diyaarada helicopter ah waa sida hadalku u dhigeen. ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa Itoobiya ee ku aadan dagaalka ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Bakool.